Juventus iyo Real Madrid ayaa ugu dambeyn ku heshiiyay lacagta Cristiano Ronaldo. Majalada Sky Sports ayaa warisay in kooxda kubadda cagta Juventus ay aqbashay inay bixiso 120 milyan oo euro una dhiganta 105 milyan oo lacagta pound-ka ah si ay ula wareegaan Cristiano Ronaldo. Muddo 9 sano oo ku sugnaa garoonka Santiago Bernabeu, Santiago Bernabeu, Cristiano Ronaldo ayaa soo gabagabeyn doona ololihiisa horyaalka Spain ee La Liga. Xidigan ayaa waayay qurxoon ku soo qaatay horyaalkan. Sidoo kale majaladaha kala duwan ee ka soo baxa qaaradda Yurub gaar ahaan kuwa Talyaaniga ayaa xaqiijiyay in Juventus ay soo bandhigi doonto saacadaha soo socda xidigan. Madaxweynaha kooxda kubadda cagta Juventus ayaa 3 saac ka hor u duulay Greega halkaas oo dalxiis u joogo Cristiano Ronaldo si ay u soo gabagabeeyaan heshiiska ciyaaryahankan. Ugu dambeyn Juventus waxay marka koowaad aqbashay lacagta ay ku heli doonaan Ronaldo, waxaase la ogeyn muddada uu saxiixi doono heshiiska. Cristiano Ronaldo ayaan ku qanacsaneen maalmihii ugu dambeeyay si joogitaanka garoonka Santiago Bernabeu kadib markii Real Madrid lacagta xidigan lagu jabin karo mushaara kadib markii xidigan lacagta lagu burburin karo Real Madrid oo dhan ay ka dhigtay 150 milyan. taas waa sababta ugu weyn ee Ronaldo uu kaga tagayo horyaalka Spain ee La Liga. Sidoo kale Cristiano Ronaldo ayaa u baahan inuu helo mushaar ku filan. Juventus waxay siin doontaa 30 milyan oo lacagta Euro-ga ah si xidigan uu u sii joogo kooxda kubadda cagta Juventus.